السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن خيارتها وضع نقد داوانيسا هلكا سيدا توسكا نقلا سعوتانا وتلفزيونka caalamiga ee Royal waxaa loo dabaaldegayaa oo dhawaan la qabtay xaflado kala duwan oo lagu weyneynayo 21 January oo ku beegan maalinta saxaafadda Soomaaliya xaflado kala duwan ayaa dalka Soomaaliya ka dhacay Puntland si weyn ayaa looga xusay haddaba si dhanka saxaafadan wuxuu ogaano iyo waxyaabihii kala duwan ay soo martay ayaa waxa noo suurta gashay in aanu telefishinka caalamiga ee Royal isagoo diiradda saaraya sidee warbaahinta dalka Soomaaliya u soo shaqeysay gaar ahaan Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso marka laga reebo dhanka elektarooniga oo warbaahintu hadda ay ku caanbaxday ay jiraan telefishin caalami oo si toos ah iminka looga daawado caalamka qaybihiisa kala duwan idaacado si toos ah ay dadku ula socdaan barnaamijyada kala duwan ee ka jira magaalooyinka Puntland waqtiyadaasi gaar ahaan marka loo eego asaaskii Puntland waxa si aad uga shaqeyn jiray dhanka wargeysyada haddaba waxa aanu dib u baaraynaa sidee warbaahinta dalku ay u shaqeyn jirtay waxa noo suurta gashay in aanu wax ka weydiino la kulano xog badan aanu ka raadino rogcada saxafi soo ahaan jiray iminkana wali aan ka dhexbixin dhanka mihnada saxaafadda kuna dhex jira talooyin badan ka siiya marka ay wax qaldoomaana loogu tago in dib loo raaco waxyaabihii kala duwana iyo sida loo shaqeyn jiray waa Maxamed Saciid Kaashawito dhinaca warbaahinta waxyaabo kala duwan ayuu ka soo qabtay waa tahay saxafi rugcada Maxamed Saciid Kaashawito adigoo mahadsan waqtiga qiimaha badan aad noo hortay warbaahinta gaar ahaan dadka jiilka cusub ee waqtigan ku soo biiray ee aan waxba kala socon waxay hadda la qabsadeen electronic shaqeynaya iyo waxyaabo badan dhibaatadii warbaahintu waqtiga hore ay soo martay adiga ayaa wax ka haya dhawaana waxa loo dabaaldegay 21 January oo ku beegan maalinta saxaafadda marka hore adoo mahadsan aan kugu mahadcelinayna waqtiga qiimaha badan ku soo dhawo barnaamijka gaarka ah ee aanu ku eegi doono saxaafadda wax qabadkeeda dhibaatooyinka taagan iyo xalka sida loogu helo caqabadaha yimaada aad ayaa u mahadsantahay Joker runtii waxaan aad idinku mahadcelinayaa bahda telefishinka Royal oo barnaamijkan isaga ah isku soo dubariday waxaan kaloo hambalyo u jeedinayaa dhammaan bahda saxaafadda Soomaaliya meel walba ay joogaan maadaama maanta loo asteeyay inay tahay maalinta xuska sanad guurada ka soo wareegta sanad walba maalinta loo asteeyay ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed iyo shakhsi walba oo suxufiya oo Soomaali ah iyadana aad ayaan idinka mahadcelinaya waan u hambalyeynaya dhammaan suxufiyiinta da'da yar iyo kuwii waayeelka ahaa oo anigu aan ugu yarahay waa u mahadcelinaya waxaan kaloo shacabka Soomaaliyeedna uga mahadcelinaya sida wanaagsan runtii sanadihii hadda ugu dambeeyay dhowr iyo 20 sano oo dawlad la'aanta ahayd ay ula shaqeeyeen bahda saxaafadda runtiina waxaan oran karnaa waa sanadaha Soomaalidu ay ku ilbaxday in saxaafaddu ay wax weyn tahay wax la adeegsada tahay wax badan ayaa iska soo bedbedelay ku ilaa ay xilligeen xorriyadda qaadanay ilaa ay xilligeen maanta joognana isbedelku waxaad moodaa waliba 20 sano ugu dambeeyay inuu si weyn u sii socday oo aad u sii kordhayay ayaad moodaa marka runtii waa aad baan idinka mahadcelinayaa bal markaan eegno qofku markuu saxafi noqonayo siyaabo kala duwan ayaa ku dhalaya bal adiga saxafinimadaada markaad ku beereysay marka hore maxaa kugu dhaliyay inaad saxafi noqoto waa su'aal aad u fiican runtii anigu saxaafadda waxna waa ka soo bartay waxaan runtii si fiican u soo bartay barnaamijkan sida filmaanta loo sameeyo iyo sida loo qoro sheekooyinka ama fiction ha ahaadaan sheekooyin khiyaali ha ahaadaan ama kuwa dhacay oo run ha ahaadaan labadaba marka 1988 ayaa waxaan qoray sheeko fiction ah laakiin dhaqanka Soomaalida salka ku haysay laakiin ma ahayn sheeko run ahaan u dhacday waxaan ka sameeynay film ma ka sameeynay filimka waxa la oran jiray waayaha waxaan ku sameeynay magaalada Muqdisho waxa filimka ugu horeeyay oo ciidamada booliska Soomaaliya ka qayb qaataan 6 oto waxa iyo hal ambulance oo isbitaal Madiina lahaa waxa meelaha ku sameeynana waxa kamid ahaa museumkii qaranka iyo warshadii Bail iyo meelaha caynkaas oo kale ah isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dawladdu gacan weyn bay waagaas naga siisay wuxuu lahaa filim commercial ah oo la iibiyay runtii Abu Dhabi waa lagu iibiyay run ahaantii waxaan aad uga xumahay
in burburkii uu iga raacay laakiin waa la ii sheegay dad haya Nairobi ku haya ama boosaasadan aan joogno laftigeeda iyadoo la daawado waa soo gaaray laakiin wixii hadda isbedeleen oo isbedeleen digital isbedeleen qof walba wixiisa isaga baar digital gareynay marka aan xilliga gacanta kuma arhayn xilligan digitalka soo marnay haddii 1991 dawladda burburto halkan aan nimina magaalada Boosaaso aan nimi magaalada Boosaaso waxa waagi hore la oran jiray gaariwaal waxa isku soo beegmay wadadii ugu bahoo la furay oo cusub dekadiyo shaqaynaysa dadkii oo soo baxsaday magaaladii hore waxba uga jirin laakiin korontana la geliyay marka oo korontaduna shaqaynayso laakiin waxyaabaha waxaan jirin waxyaabahan base-ka dawladnimadaba waa inta badan way ka maqnayd hatta waan eegay marka dadku xataa meel wax ku qortaan ama makiinaday wax ku daabacdaan iyo ma haysa marka waxaan fikiray bal inaan teebab keeno dadka aan wax baro marka iskuul teeb baan furay 20 teeb baan xamar ka dirsaday teebkii wuxuu dhalay marka haddana inaan fikirno inaan journal aan samayno waxyaabaha taariikhiga ah oo waagana soo maray haddii aan kaaga sheekeeyo waxay ahayd journalka aanu daabici jirnay sooyaal baa la oran jiray 30 xabaan daabici jiray 30 xabo waxaan laga yaabaa in la ka gato 15 xabo 15 kaleeto aanu bilaash u bixino ma ahayn dadku inay yaraayeen runtii dadku waa badnaayeen aad baa loo soo qaxay laakiin bulshada Soomaalidu ma aha dad wax akhriya waa dad waxna daawada waxna dhageysta bay kala soo yihiin marka waan fikirnay waxaan niri war dadkii joornaalkii gadan maayaan maxaynu sameynaa waa inaan sheekooyin sameynaa sheekooyin baan ku qornay sheekooyinkii xiisaha badnaadka loo jeclaa oo maxaan socodkii ku daalay ay ka mid ahayd anaa qori jiray waxyaabahaas oo dhan baan ku qornay waagi dambe runtii waxaan gaarsiinay in magaalada Boosaaso kaligeed aan ku gadno 3,000 oo koobi in dadku sii kala iibsadaan oo anagu 2,000 oo shilin baan waaga siin jirnay in lagu kala iibsado 10,000 oo shilin in goboladii iyo degmooyinka ay yiraahdaanin naloo soo dhiibo joornaalkii sooyaal naloo soo dhiibo inay yiraahdaanin waxaan abuurnay marka haddana in joornaalo kale oo barbar socda maadaama weekly one time ahayd in joornaalo kale barbar socda sida yoolka nolosha iyo yool iyo maxaan ku yiraahdaa joornaalo badan oo caynkaas oo kaleeta inaanu support garayno dhalinyaro badan oo hadda suxufiyiin noqday runtii haddii aanu muddo wadnay runtii haddana waxaan u sii gudubnay bal systemkii joornaalku maadaama uu xoogaa waxa lagu daabici jiray haddaan kaaga soo sheekeeyna waxa waaye teeb baa lagu qori jiray sometimes nalka oo waa nagu dami jiray shumac baan dusha ka saari jiray teebka oo ku garaaci jiray waxa lagu qori jiray stencil baa la oran jiray bahal duplicate la yiraahdaa lagu badin jiray gacanta hadday korontadu maqan tahay marka waa inaad gacanta ku badisaa dhowr kun oo koobi baa wax lagu sameynaya gacanta lagu sameynaya runtii waxay shaqo mihinada oo aad u adag oo waxa ka galaya iyo dhaqaalaha ka galaya iyo kharashka ka galaya maskaxda ka galaysa iyo awoodda ka galaysa laakiin dhinaca kale marka ka fiirisid bulshadu waxay wax weyn ayuu u taray maxaa yeelay waxay kala soconayeen akhbaaraadka waxaan qori jirnay isbuuc walba markuu soo baxo 2 goor baan isbuuc soo saari jirnay faalooyin baa lagu qori jiray wacyiga wadanku marka meesha uu marayo waxyaabaha khaldan iyo sida loo baahan yahay in wax looga qabto waaga maamul SSDF la jiri jiray waxa taa ishaya 3 qaybood u kala baxsanaa SSDF iyo mini SSDF iyo mid ka sii yaro Jordan SSDF la yiraahdo marka waa badnaayeen siyaasiyiinta marka dadka dhulkan degan oo marka koonfur ka yimi iyo kuwii waqooyi ka yimi iyo kuwii dibadda ka yimiba halkii isugu yimaadeen marka xilligaas waxa moodaa in la iska siyaasadda la kala jiidanayay haddii Puntland ay asaasantayna kulli marka wadankii idaacadu u gudbay annaguna meeshii baan kasii hana qaadnay oo kasii amba qaadnay waxaan sameynay raadi la oran jiray midnimo oo caan ahaa oo aad loo dhageysan jiray dad badan baa ka soo baxay weriyaal badan runtii annagu mihnada waxaan uga faa'iideyn jirnay dhalinyarada ayaan uga faa'iideyn jirnay dhalinyarada maxaa yeelay dhalinyarada haddeer inta badan ka shaqeysa waxay ka soo baxeen ama sooyaal ama waxay ka soo baxeen raadiyo midnimo bal markaynu dib u eegno marka laga gudbo xafladda iminka iyo qabanqaabada ee la qabtay xuska maalinta saxaafadda bal marka hore waxaad nooga dhacdaa oo aad noo sheegtaa jilka dambe wax moodaa inaysan la soconin sida waqtiyadii hore dhinaca saxafiyiintii da'da weynaa ay u shaqayn jireen iyo sida warbaahintu xilligii hore dalka uga howlgeli jirtay
bal aan ka soo bilowno xiliyadii sagaashameeyadii iyo xilliga adinku shaqada bilowdeen gaar ahaan goormaad shaqadan dhinaca warbaahinta bilowdeen iyo waxyaabihii kala duwanaa xilliga aad ku shaqayn jirteen jokerow runtii saxaafaddu waxay isku soo bedbedeshay sida wax badan oo caalamka ay isu bedbedelayaan teknolojiyada cilmiga sayniska dowladaha adduunka oo dhinacyo badan ka horumaraya runtii arrintaas ayay qayb ka tahay iyaduna xilligeeda iyo samankeeda ayay la jaanqaadaysaa wax walba hadday adkaayeen waagi hore waxaad moodaa in iminka wax walba ay soo fududaadeen haddii lagu shaqayn jiray waxa la yidhahda hard copy hadda waxaa loo bedela wax walba soft copy wariyayaashu way kala nasiib badnaayeen laakiin haddana dhinaca tayada shaqada waxaad moodaa inay isku sii ahaayeen for example haddii aynu tusaale usoo qaadanno filimkii ugu horreeyey adduunka la duubo ama filmaantii ugu horreeyey oo ganacsiya oo la sameeyo xilligeedii iyo maanta filimka la sameeya cameramaanku isku angal buu si wax uga qaadaa wax weyn oo saasoo macnaha kuma kala duwana laakiin kani cameramaanka hadda joogaa wuxuu kaga nasiib fiican yahay waxa u fududaynaya waxaa la yidhahda softwarada uu ku shaqaynayo ayaa waxay u fududaynayaan shaqo badan oo ninkii waagaa jiray 40kii jiray ama 30kii ama 20kii 1920kii meelaha 1940kii 50kii xataa 60kii xataa 70kii aynu soo gaarno 80kii aynu nimaanno 90meeyadii aynu soo gaarno softwareadan waxaan ma jirin marka laakiin haddana filimka markaad eegaysid daawanaysid sida loo qaadayo shootiska ama cameramaanku wuxuu qaadayay waaga iyo hadda runtii aan waxba oran karaa waagaasaan aad u xiiseeyaa sida filmaanta loo qaadayay maxaa yeelay softwareku wax badan buu khalkhaliyey laakiin waa tadawur iyo horumar la sameeyey waay joornaaladu sidoo kaleeto systemkii loo daabici jiray joornaalada xilliyada ama xorriyadeenna ka horreysay ama reer galbeedku iyo dalkeena qabsan reer galbeedku kale dib ugu noqono joornaalay soo saari jireen joornaaladii caanka ka ah Soomaaliya waxa kamid ah Corriere dello Sole iyo oo Talyaanigu uu sameeyay oo loogu talagalay dadka Soomaalida inkastoo luqadda Talyaaniga ku qornaa haddana madbacad baa lagu daabici jiray inaga madbacad baynu lahayn madbacadda qaranka Soomaaliya joornaalaha ka soo bixi jiray xiddigta Oktoobar iyo halgan iyo joornaalaha caynkaas oo kaleeta ayaa ka soo bixi jiray systemku waxa lagu daabici jiray system electronic ma ahayn system manual ah oo qaab gacmeed wax lagu sameyn jiray tab iyo waxyaabo caynkaas wax lagu waxayn jiray marka aragti joornaalka weyn oo small letter iyo yar oo small letter waa ku arki jirtay marka waxyaabahaas waxay ahaayeen waxyaabihii hadda ma jiraan marka joornaal qofku soo saarayo fartu waa size wax walba waa size way isku mid waay haddana page-ka sida loo daabacayay iyo maanta sida loo daabacayo wax difference weyn uma dhaxeeyaan laakiin journalistaha maanta jooga wuxuu nasiib u helay inuu software u fududeeyay wixii inuu bartay ku shubo datadii uu soo diyaariyay isaga softwarekaas u maamulaya laakiin idinka journalistaha waagaa joogay gacantu ku maamulay waxa farqiga u dhaxeeya marka waxa waaye waxna waxay ayaan wax hard copy ah waxna waa wax soft copy ah sidaas ku kala duwanaayeen haddii aan soo qaadano idaacadaha oo kaleeto wax lagu duubi jiray tape cajalado baa lagu duubi jiray cajaladahaas marka lagu duubo iyaga lagu kaydin jiray codka haddana wariyuhu markii la yiraahdo maalin hebel madaxweynuhu hadalku yiri baa la rabaa ama wasiir hebel hadalku yiri baa la rabaa ama shirki caynkaas ahaa hadalkii ka baxay baa la rabaa automatically isagoo aan ku wareerin wuxuu yaqaanaa cajalada ay ku jirto meesha ay kaga jirto cajalada taybka oo wareegaysa wuxuu yaqaanaa inta daqiiqo ay ku jirto wuxuu yaqaanaa qaanada ay ku jirto waa tahay rugcada maxamed siciid kaashawite marka loo eego shaqooyinka kala duwan ee xilliga aad ku jirteen dhinaca warbaahintu waxa la ogsoon yahay inay dhibaatooyin la kulmaan xilliga wararka ay sheegayaan xilligaasi bal tusaale aan soo qaadano dhibaatooyinka la kulmi jirteen xilliga warqoristaanka maxaa ka mid ahaa runtii waxa weeye saxaafadda haddii aynan ka hadalno iyo burburku waa isla jaan qaadeen maxaa yeelay waddanka waxaa ka jiri jiray hal joornaal iyo hal raadi muqdisho iyo xiddigta Oktoobar dadku wixii ay sheegaan xadiis ay u haysteen laakiin waagi dambeeto waxa batay raadiyayaashii iyo joornaaladii haddii anigu aan ahay reer qansax oo joornaal soo saara waxyaaba caqabadaha ugu daran ay ka mid ahay waxa joornaalka reer qansax baa lagu leeyahay
joornaalka iyo ninka ama labada inoo ka shaqaynaya qoladooda ayaa tiimbar lagaga dhifnay waxaa reer hebel baa iskale waxyaabaha caqabada ahaa oo xilligaa iyada ah oo aanu kala kulmi jireen waxaa ka mid ahaa sometimes in xarig uu yimaado oo lagu yidhaahdo waxaan markaa raalli laga ahayn baa la qoray waxaa ka mid ahaa qalabka lagu shaqaynayo oo ahaa qalab aan casriyeysnayn waxay caqabadaha jiraa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa in war aad qortay ku baxay joornaalka ama raadiyaha ka baxay uu caqabad noqdo oo caqabad beeleed uu noqdo oo dacwo xoog weyn ay ka timaado oo ay qaadato waqti in aad xallisid warkaas isaga ah ama dib u sax aad ugu samaysid ama dadkii warkaas dacwadooda keensaday aad ka qancisid marka caqabaduhu midda dhaqaalaha ugu darnayd dhaqaalaha ka mid ahaa caqabadaha ugu weyn maxaa yeelay dhalinyarada soomaalida waxa kan iyagaa soo unkay nin walba stationkiisa wixiisa isagaa mihnad ka dhigtay isagaa ka soo shaqeeyey dowladdu hadday wasaarada lahayd wax lahayd dowladii ma jirin inta badnayd waxa loo soo cararay loo arkay fursad bannaan dhinacii saxaafadda dhaqaale xumaa marka jirtay waxaa laga yaabaa station dhan oo shaqaynaya inuusan shaqaalihiisa uusan mushahar siin karinin oo ay caqabad noqoto marka caqabadaha ugu waaweyn kuwaasa ka mid ah waa tahay rugcadda maxamed siciid kaashawito bal aan su-aal ku weydiiyo marka loo eega dhanka wararka waa la ogyahay xilligan jiilka cusub sida ay wararka ku raadiyaan xogta warka ay bulshada u gudbinayaan siday ku heli lahayn bal xilliga aad shaqaynayseen sidee warka ku heli jirteen waxyaabaha mucjisada abay ahayd warka ma jirin telefishinna ma jirin internetna ma jirin raadiyaalna ma jirin warka sidee marka ugu horreysa lagu heli jiray xilliyada qaarkood taar ayaa lagu raadin jiray taar halowda la yidhaahdo hebel may maqlaysaa kaas baa warka aanu ku heli jir wararka qaarkood waxay noqon jireen warar 20 casho ama 15 casho ka hor dhacay inay noqdaan war news oo cusub oo annaga markaana soo gaara for example kuwii xamar nooga imaan jiray oo kaleeto wargeysadii xamar ka imaan jiray soo baxay 15 casho ka hor marka ina soo gaaraan waxaanu ka xigan jirnay wararka markaa 15 casho ka hor war ka dhacay xamar ka dhacay baanu xigan jirnay warka dadka halkaan aan u sheegnay warkaas inuu war cusub yahay warkaasina inuu news oo xambaarsan fariin muqdisho ka yimi ama koonfurta soomaaliya ka yimi ama mid waqooyi ka yimi kuwa hargeyso kaleeto saasoo kaleetaan u qaadan jirnay annaga saasaa naloo ka qaadan jiray marka ay helaan joornaalka iyagoo kaleeto wax halkaan ka soo baxa wax weyn buu ahaa annaga markaan kuwada helno wax weyn buu noo ahaa marka warka helidiisa laftigiisa wuxuu ahaa wax aad iyo aad u dhib badan runtuna waxay tahay wararka la qori jiray inta badan localka ugu badnaa wararka localka ana dee annagaa joognay wararku waxaanu qori jirnay sida ay yihiin warar sax ah oo tifaftiran laakiin bini aadan baa layahay xilliyada qaarkood way dhici jirtay in war aan sal iyo raatoona aan lahayn in uu wargeys ku soo baxo waa wax dhici jiray waay laakiin maxaan samayn jirnay apologize baanu ka bixin jirnay marka aanu ogaano sababahaasna waxaa keeni jiray in informationka lagu helo si sahlan waa tahay marka aynu dhinaca sheekooyinka iyo faallooyinka iyo waxyaabaha kala duwan wargeyska xilligaasi aad ku qori jirteen waxa kaloo ka mid ahaa bal sheekada aad noo sheegtay maxaan socodka ku daalay sidoo kale jigjiga meydkeeda ha sidato bal maxaad arrintaasi bal faahfaahin naga siin kartaa runtii waxa weeye dadka joornaalka akhristaa dad baa waxay xiiseeyaan sportiska kuwana waxay jecel yihiin maanta maxaa cusub oo news ah kuwana waxay jecel yihiin faallooyinka inay akhristaaniin society waxaa jira jecel maalintaa sheeko musalsal ah oo u socota oo bage ama 2 bage ku qoran joornaaladu iska tayo liiteen oo xanshiya lagu qori jiray 4 xanshiyo 5 xanshiyo waxba la isku xiri jiray waagi horeeto kuwaas wax lagu qori jiray marka waxay qayb ka ahaayeen qaybta mujtamaca jecel aan siyaasadda jeclayn sportiskana jeclayn inay iyagu doorkooda ay ka helaan joornaalka ay ka helaan marka sheekada maxaan socodkii ku daalo kale haddaan soo qaadano sheeko xiisad badan bay ahayd waxaa ka mid ahaa waxay ahayd waxaan haddaan dib u xasuusto wuxuu ahaa waa 2 qof oo isjecel oo meel fog kala joogay oo muddo israadinayay
oo si isu helaan sida isu heli lahaayeen ay noqotay wax aad ah caqabad ah ha laakiin maalinta dambe wiilku gabadhii uu ka helay meel uu ka malaynayn marka sheekadii waxay noqotay maxaan socodkii ku daalay haddaan malaynaya in halkan joogtid yaa waa horaan ku soo raadin lahaa ku imaan lahaa runtii filimka waayaha wuxuu ahaa filim ganacsi ayuu ahaa waxaana sheekada anaa qoray laakiin dad badan baa ka qayb qaatay oo intooda badneed hadda way dhinteen waxa xuseen caadamiba ayaa ka mid ahaa allah u naxariistee cabdicasiis waxaa ka mid ahaa nin la oran jiray cabdirasaaq jaamac salaad takar oo isagu ahaa kameramaanka waxaa ka mid ahaa cabdifataax xuseen cali oo isagu dhowaan zambia la iigu sheegay maaragtay inuu xijaabtay allah u naxariisto waxaa ka mid ahaa nin la oran jiray maxamed cabdiqaadir dheel oo hadda isaguna ingiriiska jooga raggii matelay kooxda iftin iyo qaybo ka tirsan wablada waa beri ujeedku wuxuu ahaa filin ganacsi ah aan ugu talagalnay inaanu ka ganacsanno maadaama waddanka xilligaa ay iska jirtay 1988 ay ahayd waddanku buu shaqo la'aan iska ahaa rag nin la yidhaahdo cali jaamac faarax iyo aniga ayaa maaragtay filinkaas ku shirka ahayn ama dhaqaale ahaan aan ku bixinno ama aanu ku bixinno ganacsi maskax aan ku bixinne runtii waanu ku guulaysanay qofka ninka ragga ahina waxa fiican waxa uu markaa u bareero inuu ka miro keeno uu ka dhaliyo annagu dhaqaale ma aan haysan laakiin ilaahay waa nala garab galay waanu ku guulaysanay wuxuuna ahaa filin caan baxay oo markii ugu dambeysay aanu ku iibsanay waddanka imaaraadka carabta si weyn loogu iibsaday halkaas wuxuu ahaa shareemooyinka xamar baa laga dhigay waxaa ka qayb galay booliska oo 6 oto ay ahayeen ciidamada booliskuna siiyeen isbitaalka xoog oo kaleeto wuxuuna siiyey ambulance isbitaalka madiinu ahaa isbitaalka xoog oo kaleeto wuxuuna siiyey meelihii shaybaarradii aan wax ku samayn lahayn museumka iyo warshadii bayl iyo meelaha aanu xasuusanno in filimka aanu ku qabanayo ka mid ahaa wuxuu ahaa marka sheeko wuxuu ahaa sheeko aad u malaynaysay in burburka Soomaaliya ee soo socday markaa ka tarjumaysay waa tahay maxmed adigoo ku mahadsan waqtiga qiimaha badan iminka idaacada howlgala telefishinada howlgala adigu waa daawataa waa dhageysataa labadaba dhageysi iyo daawasho labadaba way ku suurta gashaa markaad jiilka cusub eegto maxaa isleedahay way ka qaldan yihiin iyo dhaliilaha ay leeyihiin isleedahay meelaha waa laga sixi karo maxaa kamid ah horta wax walba shaqo walba oo la qabanayo khalad waa leedahay ilaah baan khaldamin bini aadanka ilaahay uu abuuray oo dhan mihnaday doonaan ha ka shaqeeyaan way khaldamaan laakiin waa la saxaa waxa la yiraahdaa qaladkii waa inuu ka faa'iideysanaa waxaas ayna ka khaldamay waxyaabaha dhaliisha ah oo aan oran karo way jiraan waxa ka mid ah for example tusaale haddaan u soo qaadanno telefishinada oo kaleeto habka la u soo gudbiyaan wararka marka ay soo duubayaan ninka warka duubaya waxa laga yaabaa inuu zoom inuu u isticmaalo fara badan oo lumiya muuqaalkii uu bulshada u soo gudbin lahaa marka waxaan oran lahaa horta zoomka faraha badan la iska daayo waxa badanaana la isticmaalaa marka wax la duubayo tarbiyadii ama geedkaas saddexagalka ah oo kaamarada la saaro waxa laga yaabaa garabka inuu kula ordo in aadan aragba wixii ay si kugu dhaafaanin xilliga uu wax duubayo oo inta badan noqota xilli aad cadceedu u kulushahay oo isagana luminaya muuqaalkii luminaya waxa ka mid ah waxyaabaha haddii aan soo qaadanno wariyaha warka sheegaya oo qayliya oo codkiisu uu dhegajabis noqdo oo barnaamijka ka dambeeya markuu isagu ka baxo uu noqdo cod normal ah qaylada haddii mikrofoonku qofku qayliyo iyo haddii uu tartiib u hadlo mikrofoonku mar walba codku waa gudbinaya in waxyaabaha loo baahan yahay in laga tababaro dhalinyarada in laga tababaro waaye dadka qaybo kamid waxay aaminsan yihiin warbaahinta oo badataa marba marka ka dambaysa inay dhibaatooyin iyo midnimadii dalka inay qayb ka tahay inay dhibaatooyin keenaan marka adigu ma aaminsan tahay in dalka laga soo reebay in hal idaacad iyo hal telefishin ay ka howlgalaan oo kaliya faa'iidooyin badanna way leedahay ma isleedahay in dalka idaacado iyo telefishinno badan ay ka howlgalaan adeegtadaada waa mid sidee ah hal telefishin iyo hal idaacadeed waa dad meel lagu xirtay adduunka waxa fiican competition in la isdhinac ordo haddii hal shirkad oo taleefano ah haysatid meel bay kugu xiranaysaa laakiin markaad 5 shirkadood haysatid ama 3 shirkadood haysatid sida inaga hadda Puntland oo kaleeto dhowr shirkadood telefishin waxa ka jira isgaarsiinaa ka jirta runtii waa jaban yahay qiimo laakiin hadday hal shirkad ahaan lahayd qiimo waxa laga yaabaa $4 $5 in la yiraahdo banaanka kula hadlaysaan marka hal telefishin iyo hal raadiyo waa halaag weeye ummadana uma fiicna horumarkeedana uma fiicna diktatoriyad baana ka dhalata
waxaana fiican wuxuuna inayan tirada iyo tayadiina ka badan waa fiican tahay in wuxuu hal xabo aysan ku koobnaanna way fiican tahay laakiin ka inamaa wax bataanba de caanaha haddii shaandhada haddii caanaha lagu shubo caanuhu kama wada dusaan shaandhada haddaad shaandhada gargaraacid caanaha ka soo daadanaya soo maaha waxaan way kala harayaan waxaa iska bataan laakiin way kala harayaan shaandhada wuxuunbaa ku hari doonaa haddii la yiraahdo aad baan kugu mahad celinaynaa rugcadda maxamed siciid kaashaweeto oo noo suurtageliyey waraysigan gaarka ah barnaamijkan gaarka ee ku aadan dhinaca warbaahinta waa tahay maxamed marka loo eego maxaa u soo jeedinaysaa talo iyo tusaale jiilka cusub ee iminka dhinaca warbaahinta ku dhex jira waxaan kula dardaarmayaa shaqada intay ku jiraan inay aqoontana xoogga saaraan oo ay isbarbar wadaan shaqadii iyo aqoontii aqoonta markaan leenahay waa inay cilmi kororsadaan maanta cilmiga waaba iska soo fududaaday waxaa laga bartaa meelo badan oo internetka haddii in badan aad adeegsataan inay bartaan sida waraysiyada qofka looga qaado maxaa yeele waxaa arkaysaa qof nin dhallinyaro ah oo waraysanaya nin siyaasiya laakiin dadweyne waxay dareemayaan su-aalihii looga baahnaa in la weydiiya inuusan weydiin markaas guux baa bilaabanaya ninkaa wariyahay in la laaluushay oo kaleeto marka waa inuu bartaa ninka aad waraysiga ka qaadaysid oo u duulaan tegaysid war waxaa ka waraysanaysid marka horeet waa inay kuu bisil yihiin oo halka kuu yaallaan waxyaabaha aan ku dhiirigelinaya dhallinyarada soomaaliyeed oo saxafiyiinta ah ayay ka mid tahay meelaha aan wax ka dareemayno baa ka mid ah in siyaasiga aan laga baqin maxaa yeelay siyaasadda wehelkeedu waa saxaafadduna waxay horu marisaa siyaasadda waddankaas iyo bulshada waddankaas iyada ayaa ama dib u rida ama hore u wada haddii marka suxufigeeni uu noqdo ninka siyaasiga markuu soo hor fariista ka baqaya bulshadaasina weligeed waxay noqonaysaa bulsho dib u dhacsan bulsho laga qariyey runtii bulsho aan xaqiiqada ogaanin suxufigeediina uu noqday mid baqaya ama laaluush qaadanaya siyaasigeediina uu noqday ninkaa dee lagaba baqayo oo ninka wariyaha hadduu soo hor fariisto wuuba ogyahay inuusan waxba u sheegayn annagu waa nagu dhici jirtay waagaanu saxaafadda joognay in nimanka siyaasiyiinta yidhahdaan su-aasha hebel iyo su-aal hebel ima weydiin kartaan laakiin waa weydiin jirnay waana in la weydiiyana xaq bay u leeyihiin marka waxa waaye mihnadda saxaafadda haddii aadan su-aalaha loo baahan yahay ninka siyaasiga aadan weydiin mihnadda saxaafadda waad lumisay weriyow waxaan idinkula dardaarmaynaa mihnadda saxaafadda barashay u baahan tahay ha la barto in la soo galo maanici ma aha laakiin waa in la bartaa waata hadda wadayaal intaas ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ah ee dhinaca warbaahinta iyo dabaaldegeeda aynu ku eegeynay iyo taariikhihii kala duwanaa isla markaasina uu marti noogu ahaa rugcadda saxafi maxamed siciid kaashawito daawadayaal guud ahaanba barnaamijka intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono kulanti dambe